مشرح جغدا مدحوينها ee xisbiga kulmiye ahna gudoomiyaha xisbigaasi Mujaahid Muuse Biixi Cabdi oo kormeer ku maray degmooyinka hoos yimaada gobolka Gabiley ee ay ka socoto diiwaangelinta kaarka codeynta ayaa maanta si balaaran loogu soo dhaweeyay magaalooyinka Wajaale iyo Kalabeed oo ka tirsan gobolka Gabiley waxaana ka tirsan taageerayaasha xisbiga kulmiye oo ay horkacayaan maamulka degmada Wajaale wafdigani oo horkacaya musharaxa madaxweynaha xisbiga kulmiye kaga hor yimid duleedka magaalada Wajaale kuwaasi oo watay farto heensaysan oo loogu talagalay soo wadhaweynta wafdigaasi gudoomiyaha xisbiga kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi ayaa taageerayaasha kala hadlay khayriyada magaalada Wajaale magaalada wax soo saar dadka reer Wajaale waxa laga doonayaa inay saambal iyo tusaale u noqdaan horumarka ganacsiga maamulayaashaha waa muraayada Soomaaliland Wajaale waxa laga doonayaa noqdaan baada kulmiyaha daynu dhacay waxaynu kulmiye ku nahay dalkeena horumarino dadkeena maayno xagga horeynu aadno waxa kale oo la hadlay dadweynaha soo buux dhaafiyay khayriyada magaalada Wajaale maamulka magaalada xubno ka tirsan golaha wasiirada عبد الرشيد سليمان موسى Somali Cable TV gobolka Gabiley